taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in khubaro ay u xilsaareen kala talisa wadamada aan lagu tagi kareynin baasaboorka dalka Soomaaliya. Sayid Maxamed Aadan ayaa Muqdisho warka nooga soo dirtay. maxamed aadan koofi oo ah taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay TV-ga Somali Cable ayaa sheegay in wadamada caalamka ay kala hadleen sidii baasaboorka Soomaaliya uu u heli lahaa aqoonsi caalami ah looguna tagi karo dal walba. waxa uu xusay in arintaasi loo xil saaray khubaro heer caalami ah. marka wadahadalladu waa bilowdeen discussions iyo waxaan furnay wadahadallo ku saabsan baasaboorka Soomaaliga dawlado badan oo su'aalo qabay waxaan u diyaarinay waxaan la yeelanay kulamo aan kala doodayno arrintaani. waxaa jira dad khubaro ah oo u xil saaran arrintaas oo hadda aan u saarnay oo iyaguna la fadhiisan doona wadamadaas iyaga ah sababta inay maaragtay ku qanciyaan intooda badan wadamada ugu muhiimsan way yaaliin miiskay saaran tahay doodaasi. hadda waxay inoo maraysaa marka waxaan ka soo gudubnay baasaboorka securitygiisa ama security featureska wax la yiraahdo ama standardkiisa waa ka soo gudubnay oo caalamku hadda waxay wada qaateen inuu yahay baasaboor standard ah oo security featureskiisa lagu kalsoonaan karo. meesha hadda la marayo oo aan rabno inagana inaan shaqo weyn ka qabano waxa habka lagu qaato baasaboorka ayaa su'aalo badan iyagu ka jireen. taasna waa mid aan hadda u taaganahay inaan wax ka qabano. dhinaca kale taliye koofi ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u hoggaansamaan shuruucda u taala dalka iyo habka loo bixiyo adeegyada socdaalka ayna u dulqaataan qaabka iyo shuruucda adeegyada ee lagu bixiyo baasaboorka Soomaaliya. in la ixtiraamo sharciyada iyo hababka lagu bixiyo adeega socdaalka iyo jinsiyadaha oo ay ka mid tahay fiisooyinka oo ay ka mid tahay baasaboorada. arrintaas marka waxay noo fududeyn doontaa inaan ka shaqeyno inaguna inaan adeega aan bixino baasaboorada aan bixino ee adduunka aqoonsi caalami ah ka helaan oo qofka Soomaaliga kalsooni uu ku qabo baasaboorkiisa. waxaan hadda ka shaqeynaynaa oo bixinay qaybinay procedureski iyadoo sharciga loo fiirin habkii baasaboorka lagu bixinayo. meel kasta oo maanta baasaboorka lagu bixiyo waxa yaala habka bixinta baasaboorka yaala oo sharciga ku salaysan. kaas in loo dulqaato oo la raaco oo ay loo dulqaato waxa ku jira shuruudo adag ayaa ku jira. shuruudahaasi sharciga na amray oo na faray marka inay nagu gacan siiyaan fulinta sharciga. natiijada soo bixi doontana waxay noqonaysaa in baasaboorkeennuna uu helo aqoonsi caalami oo meel kasta adduunka lagu tagi karo. adeega aan bixino socdaalka uu bixiyana sidoo kale inuu noqdo mid standard ah oo meel kasta loo qarsoonaan karo. aad iyo aad shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan u salaamaya. Sayid Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho. xil saaran arrintaas oo hadda aan u saarnay oo iyaguna la fadhiisan doona wadamadaas iyaga ah sababta inay maaragtay ku qanciyaan intooda badan wadamada ugu muhiimsan way yaaliin miiskay saaran tahay doodaasi. hadda waxay inoo maraysaa marka waxaan ka soo gudubnay baasaboorka securitygiisa ama security featureska wax la yiraahdo ama standardkiisa waa ka soo gudubnay oo caalamku hadda waxay wada qaateen inuu yahay baasaboor standard ah oo security features iyo hababka lagu bixiyo adeega socdaalka iyo jinsiyadaha oo ay ka mid tahay fiisooyinka oo ay ka mid tahay baasaboorada. arrintaas marka waxay noo fududeyn doontaa inaan ka shaqeyno inaguna inaan adeega aan bixino baasaboorada aan bixino ee adduunka aqoonsi caalami ah ka helaan oo qofka Soomaaliga kalsooni uu ku qabo baasaboorkiisa. waxaan hadda ka shaqeynaynaa oo bixinay qaybinay procedureski iyadoo sharciga loo fiirin habkii baasaboorka lagu bixinayo. la hadleen sidii baasaboorka Soomaaliya uu u heli lahaa aqoonsi caalami ah looguna tagi karo dal walba. waxa uu xusay in arintaasi loo xil saaray khubaro heer caalami ah. marka wadahadalladu waa bilowdeen discussions iyo waxaan furnay wadahadallo ku saabsan baasaboorka Soomaaliga dawlado badan oo su'aalo qabay waxaan u diyaarinay waxaan la yeelanay kulamo aan kala doodayno arrintaani. waxaa jira dad khubaro ah oo codkiisa lagu kalsoonaan karo.
meesha hadda la marayo oo aan rabno inagana inaan shaqo weyn ka qabano waxa habka lagu qaato baasaboor ayaa su'aalo badan iyagu ka jireen taasna waa mid aan hadda u taaganahay inaan wax ka qabano. dhinaca kale taliye Koofi ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u hoggaansamaan shuruucda u taala dalka iyo habka loo bixiyo adeegyada socdaalka ayna u dulqaataan qaabka iyo shuruucda adeegyada ee lagu bixiyo baasaboorka Soomaaliya in la ixtiraamo sharciyada. taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in khubaraha ay u xilsaareen kala talisa wadamada aan lagu tagi kareynin baasaboorka dalka Soomaaliya. Sayid Maxamed Aadan ayaa Muqdisho warka nooga soo dirtay. Maxamed Aadan Koofi oo ah taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay TV-ga Somali Cable ayaa sheegay in wadamada caalamka ay